السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدن يالي مروين دمان نوحن هالكان كسلام يا ururada dhalinyarada oo ugu horeeyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellada Hoose sidoo kale waxaan salaamayaa ururada dhalinyarada ee ka jira gobolka Banaadir waa salaamantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa in aan ugu mahadceliyo dhalinyarada aanu qalin wadaagta ahayn iyo dhalinyarada kale ee Soomaaliyeed ee aragtidan golaha iskaashiga dhalinyarada Soomaaliyeed uu ka yimid marka lagu leeyahay gole waa madal taasi oo ka timid dhalinyaradana waxay tahay waa dhalinyaro qalin wadaaga meel wada joogay iyo dhalinyaro dabcan aragtidooda iyo fikirkooda saliimka ah ku soo wajahay marxaladan maanta aan ku jirno 4 sano ka hor sidii aan kaga gudbi lahayn marka golaha marxalada kala duwan ayuu soo maray gudoomiye iga horeeyay ayuu soo yeeshay iminka gudoomiyihii labaad ayuu leeyahay aad ayaan ugu faraxsanahay maanta marxalada aan taaganahay inaan soo istaagno waan aaminsanahay 5 sano soo socoto iyo 10 sano soo socoto golaha iskaashiga Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed in uu marjic u noqdo dhammaan ururada dhalinyaro ee ka jira dalkan annagoo ah kaadiriin wadankanna dabcan marka wax ka bedelayna ama wax ka go'aaminayna aan ku faano in aan dhidibada aan u aasnay marxalad marka loo baahnaa urur dhalinyaro oo noocaan oo kala marka laga hadlayo nolosha saaxiibkay cusubow gudoomiyaha arrimaha bulshada wuxuu sheegay marxalado in nolosha ay marto qofka bini aadanka marxalada uu fudud ee la rabo in uu ku fikira waxay tahay dunidan maalinta uu imanay maba uu si jirin hadii ay si jireen hooyo aabo ayaa isbartay waa isguursadeen waxa waaye amaliyada dhacay muddo kadib alxamdulillah ilaahay baa calooshood kugu beeray hooyo Allah barakeeye kadib waa dhalatay waa gurguratay noloshu dabcan marxalado fara badan ay ku soo tustay alxamdulillah maanta nin la hiigsanayo oo isaguba nolol kale in uu dabcan marjic u noqdo ayaan dhamaanteen wadanahay waan aaminsanahay ururka golaha iskaashiga Soomaaliyeedna in marxalad la ceena uu marayo alxamdulillah waan u mahadcelinayaa dhalinyaradii waqtiga faraha badnaa iyo juhdiga faraha badnaa soo galiyay golahan sidoo kale maanta dhalinyarada Soomaaliyeed laba shay ayaa haysato hadii aynu nahay dhalinyaro waxay tahay dhibaatada ugu badan ee haysato identity crisis aan u dhacay cidda anaga aan nahay ma garanayno marka aad tagto social media Facebook siiba aalada TikTok qofkas wuxuu ku leeyahay waxaan u baahanahay caannimadu iyo shakhsiyadaadu waxa ay ka bilaabataa waxa adiga aad tahay hadii adigu aaminsan tahay in aad tahay shakhsi jiro ilaahay dunidan uu keenay dunidan wax ka bedeli kara nafsiyan maskax ahaan aqoon ahaan u diyaarsan waxaad noqonaysaa qof dunida wax ka bedela laakiin hadaad u diyaarsanayn si kasto oo caannimadaadu caannimo ay u dhasho meel ma gaarayso because of ama sababta ugu weyn waxa ay tahay wax tayo leh ma haysatid tan kale waxay tahay clan crisis waxa la yiraahdo dhacay qabiil maanta qofka marka aad barato hebel yaa tahay marka aad isbarataan magac ahaan shakhsiyan marka qofka aad isbarataan oo iswareysataan su'aasha saddexaad ee weydiinayso waxa ay tahay niyo horta yaa tahay adiga Soomaaliya intee ka gashaa ma waxa tahay beelaha afarta mise dhanka kale dhibaatadaasna waxay tahay clan crisis ka haysto wadankeena sababta ugu weyn ee taasuna ugu dhacday waxay tahay political crisis aan haysto siyaasadii dhibaatadaas noo keentay sababtoo ah maanta hadii xil aad doonanaysid hadii lagu weydiinayo yaa tahay
inaad qabiil dabcan aad wax ku raadisaa taas ayaa keenayso laakiin golaha dhalinyarada iskaashiga Soomaaliyeed arinta waa ay ka duwan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed gobol walba joogo magaalo walba joogo waxaan aaminsanahay in haddii uu baahdo in uu ka mid noqdo golaha iskaashiga dhalinyarada Soomaaliyeed in uu xubin ka noqon karo waa rajaynayaa mustaqbalka dhow iyo bilaha iyo sanadaha soo socdo in aan gobolada Soomaaliya oo idil aan ka qabano shirweyne golaha iskaashiga dhalinyarada Soomaaliyeed kaasi oo aan isku keeni doono dhammaan dhalinyarada maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir intaba taasina waxa ay Google dhig u tahay in dhalinyaradu ay isfahmaan marxaladda aan ku jirno dhalinyaranimo waa marxalad dabcan la wada noolaan karo laakiin markaan ka wada baxno oo aan gaarno 40 iyo 50 Soomaaliya hadaan nahay waxaan u dhacay waxa ah niyahow odayii qabiilka baad noqonaysaa mise siyaasi ayaad noqonaysaa mise ganacsade waxaad ka baxaysaa noloshii ceesho milix oo ahayd in saaxiibka Faarax oo jaamacad soo wada dhameyseen iyo geedi oo aad dugsi quraan soo wada iga jirteen ka leexato sababtana waxa ay tahay waxa gashay mustawa ka duwan mustawii shalay ku jirtay marka waxaan rajaynayaa inta oo idil in aan anagu u noqono dadkii bedeli lahaa waan rajaynayaa haddii ay naga go'an tahay in aan bedelno in aan bedeli karno noloshu marka laga hadlayo waxa ay wax walba ka hirgalaan waxay tahay decision making ka asameysid noloshaada adii u qaado haddii noloshaada aad go'aamiso in aad wax walba wax ka bedeli karto waad ka bedeli kartaa laakiin haddaad aaminsan tahay wax walba in aysan suurtagal ahayn suurtagal ma noqonayaan waxaan rabaa kelmad ugu dambayso in aan ku soo koobo waxay tahay dhamaanteen waxaanu nahay walaalo waxaynu nahay dad Soomaaliyeed isir magac iyo intaba wadaaga marka waxaan rajaynayaa walaalayaal in aanu garab iyo gacanba aan iska siino sidii golaha iskaashiga dhalinyarada Soomaaliyeed aan dhamaanteen xubin buuxa ugu wada noqon lahayn sidoo kale ururada dhalinyaro ee ka jira gobolka Banaadir waxaan ugu baaqeynaa oo baaq dheer aan ugu direynaa in ay xubin buuxda ka soo noqdaan golaha iskaashiga dhalinyarada Soomaaliyeed ugu dambeyn marka khudbadeeda halkaas ayaan ku soo afmeerayaa Soomaaliya Soomaali baa leh Soomaaliya ha jirto waligeed alleed waad mahadsantiin